kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada kanaalkeena ka ah wararka ku soo gudbina wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo maanta si rasmi ugu furmay magaalada Muqdisho ayadoona warar hordhac ay sheegayaan in qodobada qaarkood heshiis buuxa laga gaaray ilaa 4 qodob ayaa la soo qabanayaa waan soo gudbinaa saaxiibayaal qodobadaas heshiiska laga gaaray iyo waxa ay ugu dhigan tahay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo اللي ما أنت وكم شركة محاكو قصبي هدبا وانسوق بدونا سياسية داير محمود قيل هات أنا كمنا مشرحين معارضة هيا دنكي سوح وسادالي إن كلن كمان وفرمي ومدحونا فرماجو وكما قنان كرو سده وساداش وبحي هيا نسوق بدونا جنال كينا كاها وركا طلبة كلا داود دونتان وحا قيب كنا قدنا دقال عروس وما أنت كاكر حد دقمده واللوين قبل كاشبه الله هوسي هدبا دقال كاسو ودحيا محاكا لسعوتها إن معمولة ودنعيدا halka wadadiga ee maamulka ka haya in dagaalkaas uu dhaxayo qasaar isku jira dhimasho dhaawac ayaana laga soo sheegaya dagaalkaas waa soo gudbi doona saaxiibayaal soo kale waxa daawan doontaan wararkii ugu waaweyn ee dhanka diblomaasiyadda arrimaha caalamka oo ayaguna qaybka barnaamijkeena qodobadaasi wixii soo koraya daawan doontaan saaxiibayaal fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar gambalka furo nashra garay saaxiibada meelka si joogan adigoo commentiga like inoo reebaya aad baad dumaasantihiin waxaan ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho waxaa maanta si rasmi ah ugu furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka waxaana ka furmay teendhada Avizione shirka waxaa markaas shir gudoominayay Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble waxaana ka qayb galay dhammaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kale shirka ayaa bilowday isagoo oo ka maqan yahay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horay qayb uga ahaa wadahadaladii fashilmay ee magaalada Muqdisho iyo dhuusan mareeb ka dhacay janaalkeena ka wararka ayaa ogaaday qodobo gaar ah oo ilaa iyo 4 gaaraya oo si hordhac heshiis loo gaaray qodobadaasi waxaa ka mid ah guddiga doorashada inta gobolka Gedo inta Somaliland iyo amniga aan ku horumarno qodobka koowaad guddiga doorashada wasaaraha ayaa ballan qaaday inuu kala diro guddiga doorashada ee lagu murusan yahay isla markaana uu magacaabo guddi cusub oo lagu kalsoon yahay loona wada dhayahay qodobka labaad oo ah arinta gobolka Gedo waxa muuqata inuu jiro tanaasul ku aadan gobolkan iyadoo maamulka Jubbaland lagu wareejinayo maamulka doorashada ama meesha laga saarayo iyadoo doorashada laga dhigayo hal magaalo ama maamul goboleed kasta taas oo noqonaysa magaalada Kismaayo Somaliland oo qodobka saddexaad ah in gudoomiye Cabdullaahi waa gudoomiyaha aqalka sare iyo mas'uuliyiinta kale ee gobolada waqooyi ay go'aan ka soo gaaraan arinta Somaliland loona madax banaanayo taas oo meesha ka saaraysa saameynta fiilada Soomaaliya ee ku lahayd qodobka ugu dambeeya kan afraad ah amniga doorashooyinka dalka arinta kale ee sida hordhac ah halka loo gaaray waxaa ka mid ah in amniga doorashada ay la wareegaan ciidamada booliiska labada heer ee federaal iyo maamul goboleedyada oo ay weheliso ciidamada AMISOM ee booliiska Soomaaliya ku sugan naga kalantana haddii aanu agno waxaa shirka maanta ka maqnaa madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la sheegay in shirkan uusan ka qayb galin maadaama uu horey ugu fashilmay arrimihii ku aadanaa ee ku saabsanaa in dalka doorasho uu aado waxa uu sidoo kale la sheegay in xogaha ay soo baxayaan inuusan ka qayb gali doonin shirkan maadaama uusan qayb buuxda ka soo qaadan dadaaladii iyo horumaradii markaasi lagu dhameystirayay geedi socodka doorashooyinka dalka waa eedeymaha loo jeediyay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta aan ka bixin arrimaha dalka ee gaar ahaan doorashooyinka oo maanta furmay waxaa goordhow ay doonaa warar ku saabsan dagaalka weyn hase yeeshee Sheekh Maxamuud Geelo oo ka mid ah golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ah ayaa markaas waxa uu qormo uu qoray 17 Abriil 2022 ku sheegay in khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya lagu xalin karo miis uusan fadhin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas oo muuqata inay dhab noqon karto maadaama maanta Farmaajo lagu waayay shirka uu furmay dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada oo go'aan loo gaarayo arrimaha doorashooyinka dalka Farmaajo waxaa soo martay maalin gurbaan taageero loo tumayay maalin laga dalbaday inuu Google video iskala si kala guurka looga areensado balse waxa uu xagal daaciyay ayuu fariin u muuqatay inuu si toos ah waqtiga ugu daray madaxweynaha hadda banaanka imaaday daargeela ayaa intaas ku daray wax xiga maalin gogasha isaga laga codsan jiray ee beesha caalamka isagoo ugu yeerto waana isaga dhaqaaqnay ayuu yiri Dhac Maxamuud Geele oo markaas kamid ah golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo qormo uu qoray 17 bishii Abriil 2022 markaas uga hadlayay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo sida madaxweyne Farmaajo uu u gacan saaray dadaalada socda iyo in markaas uu wax qayb haatan ku lahayn kulmada maanta dib bilaawmay
wejiga kuwaad ayaana haatan lasoo gabagabeeyey waxaana lasii socon doonaa baleeri wejiga labaad ilaa iyo saddexaad sida uu afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macluum warbaahinta u sheegay kadib markii kulanka uu soo ilaaday tan ayaana ka dhigan in heshiiska doorashada 17 September lagu sameyn doono iyo afgaradkii 16 Febraayo ee gudida Baydhabo magaaladaas ay ku gaareen way daawadayaal qaybihii hore ee janaalkeena ka wararka daawanaysan fadlan hadii aad nagu cusub tahay albaabina subscribe saartan gablaakan furtuuno shargeliso saxiibada meelkasta joogaan markaan gobolka Shabeellaha Hoose wararku waaweyn aan helayno waxa ay sheegayaan in halkaas dagaal culus oo u dhexeeya ciidamo ka watirsan kuwa maamulka iyo degmada Walweyn dagaalka ayaa la sheegay inuu dhaxmarayo ciidamo kala taabacsan gudoomiyaha degmadaasi maxamed siido iyo ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada degmadaas axmed qeyre oo isku haya balmo maamul iyadoo khilaafkooda gaaray gacanka hadalkii ugu cuslaa dagaalkana uu sabay dhimashii dhaawac waxaa gudaha degmadaasi Walweyn laga maqlayay rasaas xoog leh oo ay dhinacyadu iswadaagsadeen waxaana dadku deegaanka bilaabay inay ka barakacaan goobaha ay ku dagaalamayaan labada ciidan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo hoostaga maamulka koonfur galbeed ayaa wax waraha ka soo saaray xaalada taagan degmada Walweyn oo kamid ah degmooyinka ay sida joogtada ah ugu dhacaan shaqaqooyinka isla markaana ay dhinacyadu weli xal rasmi ah ka gaarin waxyaabaha ay isku hayaan waxaan la xiriiray dhinacyadu dagaalamaya oo labada dhinac ah waxa ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan maadaama dagaalka uu yahay mid culus isla markaana ay dhinacyadu aad ay kala tabanayaan sidoo kale maamulka koonfur galbeed mas'uuliyiinta la xiriiray gaar ahaan waxa ay sheegeen in weli ay socdaan waawaanta ku aadan in la qaboojiyo dagaalka isla markaana la kala dhaxgalo ciidamada labada maamul ka kala tirsan waa markaas ciidamada labada dhinac ee maamulkooda ah hase yeeshee kala taabacsan gudoomiyaasha halka ka armiya waxa ay sheegeen in waawaantu ay hadda meel wanaagsan ay marayso wixii ku soo kordhay dagaalkaas iyo xaaladda guud ee degmada Walweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose wararkeena kale ee soo aadan ayaan iskugu soo gudbi doonaa daawadayaal markaan haddii aanu fiirino haddii aanu eegno wararka ugu waaweyn ee arrimaha caalamka ee diblomaasiyadda waxaa si rasmi ah u dhaqan galay xabajoojintii ay baryootmeen dalka Israa'iil ka ahaan ciidamada Yahuudda markaasi si rasmi ah u dhaqan gashay waxa ay dhaqan gashay xabajoojinta u dhaxaysa Israa'iil iyo dagaalyahanada Falastiiniinta iyo Xamaas kadib 12 maalmood oo dagaal dhaxmaray kaas oo ay ku dhinteen 250 qof kuwaas oo markaasi howlgallo culus ay sameeyeen howlgallo nadiifin ah ayaa ka socday wadooyinka uu burburay dhismaha qariyay ee Gaza warshadaha oo ka bilowday masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa waxa ay sii balaartay markii Xamaas ay gantaalo ay ku weerartay magaalooyinka Israa'iil oo dhankooda bilaabay inay duqeyso marinka Gaza wuxuu khilaafka bilowday markii Britain ay u wareegtay aagga loo yaqaan Falastiiniinta waa xilligii laga adkaaday taliyihii qaybta bariga dhexe ee boqortooyada Cusmaaniyiinta waxaana markaa bilowday dagaalkii kuwaad ee adduunka waxaana dalkaasi ama dhulkaasi degnaa Yuhuud tiro yar iyo Carab aad u badan intuu dhexeysay 1920 ilaa iyo 40kii waxaa sare u kacay tirada dadka Yuhuudda ee halkaasi gaaray badankood waxa ay ka qaxeen Yurub oo dagaalo ay ka jireen waxayna ka baxseen in la dilo waxay raadiyeen meel ay degaan kadib xasuuqii helicopters ee lagu magacaabo waxa ay haatan xaalad dadka ay dareemayaan mid aad u wanaagsan daawayal guud ahaan waa naginta wararka waaweyn arrimaha diblomaasiyadda ee Soomaaliya iyo caalamka ka ah wararka fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe saaro gombalkana furo una share garay saaxiibada meelkasta ay joogaan adigoo markaasi commentiga like noo reebaya waad ku mahadsantiin daawashadeena iyo sida aad had iyo jeer ula socotaan qodobada ugu waaweyn ee aan soo gudbino nabadgelyo